Asalaamu calaykum akhyaarta sharafta badan. Kusoo dhawaada janaalka dhacdooyinka dunida tubada ka barateen barnaamijyo xiiso badan. Maantana mowduuca waxaan idinku haynaa dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee dhacay sanadkii 2019 ilaa sanadka iminka aynu ku guda jirno ee 2020. Maanta waxaan soo qaadan doonaa 6 dhacdo oo ugu la yaab badan aadna la yaabi doontid. Janaayo 1, 2020 ayaa la xusayaa bilowga 10 sano oo cusub oo dad badani ay fiirinayeen rajo wanaagsan iyo fursado nololeed oo cusub. Hadda 3 bilood oo u badani ay dad badani isweydiinayaan haddii uu sanadkani ka sii daro iyo waxa hadda socda ilaa hadda sida ay noqon karaan. Tilmaan hordhac oo ah waxa soo socda. Isku soo wada duub dhacdooyin xun ayaa bilaabmay. Dhacdada 6aad waa dhulgariir ka dhacay dalka Turkiga iyo Kariibiyaanka. Wadarta 41 qof ayaa ku dhintay halka in ka badan 1,600 oo qofna ay ku dhaawacmeen bariga Turkiga kadib dhulgariir ku dhuftay gobolka Janaayo 24-keedii. Dhulgariirkani ayaa lagu qiyaasay inuu yahay cabirkiisu 6.7 ayuuna ku dhuftay meel u dhow magaalada Savrise ee bariga Elazig, taasoo sababtay ugu yaraan 10 dhimasho, 10 dhisme oo dumay. Dhacdada 5aad waa geeridii Kobe Bryant, ciyaaryahankii kubadda kolayga ee caanka ahaa. Shil diyaaradeed ayuu ku dhintay 26-kii Janaayo. Kobe Bryant oo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu waaweynaa ee NBA ayaa ku dhintay da'da 41 sano kadib shil diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow Los Angeles oo ay la socdeen gabadhiisa oo 13 sano jir ah iyo 7 kale oo saarnaa diyaaradda. Dhacdada 4aad waa duufaanta Taal Volcano. Laan kulul ayaa ka soo baxday volkaano ku taal Filibiin 12-kii Janaayo kadib markii si lama filaan ah ay u qarxeen ash iyo uumi ayna ku qasabtay dadka tuulada deganaa inay cararaan. Sidoo kale waxay xireen garoonka diyaaradaha Manila ee caalamiga ah, xafiisyada iyo iskuuladaba. Dhacdada 6aad waa daadadka fatahaadaha Indonesia. Daadad ka dhacay caasimadda Jakarta iyo magaalooyinka u dhow. Horaantii Janaayo 66 qof ayaa ku dhintay halka ku dhawaad 400,000 oo qofna ay ku qasabtay inay ka cararaan guryahooda. Ugu yaraan 182 xaafadood ayaa ku qulqulay aagga weyn ee magaalada Jakarta. Dhacdada 2aad waa dabka Australian-ka. Guga Australian-ka sanadii laga soo bilaabo sanadii 2019 ilaa 2020. Xilliga dabka Australian-ka ee loo yaqaan xagaaga wuxuu ku bilaabmay dab culus oo aan la xakameynin Juun 9, 2019 baadiyaha koonfur bari ee waddanka. Dabka oo ka dillaacay bishii Diseembar iyo Janaayo ilaa markaa waa la haystay oo waa la baktiyay. Dabkani wuxuu gubay qiyaastii 18.6 milyan oo hektar wuxuuna burburiyay in ka badan 5,900 oo dhisme wuxuuna dilay ugu yaraan 34 qof. Dhacdada ugu dambeysa ee 1aad waa coronavirus ama COVID-19. Waa mid ka mid ah musiibooyinka dhacay 2020
oo sababay silic aadamnimo oo weyn iyo carqaladeyn dhaqaale oo ku baahay caalamka. Cudurkan dillaacay ayaa markii ugu horreysay lagu aqoonsaday magaalada Wuhan, oo ah magaalo ku taal gobolka Hubei ee Shiinaha dhaca, bishii Diseembar 2019, waxaana loo aqoonsaday inuu yahay cudur faafa ay soo saartay Ururka Caafimaadka Adduunka bishii Maarso 11-keedii. Halkaana waxaa inoogu eg barnaamijkan uga hadlaynay dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee dhacay sanadkii tegay 2019 ilaa sanadka aynu ku guda jirno ee 2020. Fadlan janaalka haddaad ku cusub tahay subscribe, like, aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.